Jadeecada waxaa lagu tiriyaa xanuunada aadka u fida kuna fida muddo kooban. Xanuunkani da' kasta ayuu ku dhici karaa laakiin wuxuu ku badan yahay carruurta da'dooda ka yar tahay 5 sano. Magacyada afka qalaad lagu kala yiraahdo waa measles iyo rubiola. Jadeecada waxaa keena ama sababa infection virus ah lagu magacaabo paramyxovirus. Wuxuu waxyeeleyn karaa mise waxyeelo u geysan karaa habdhiska neefsashada. Muddada uu xanuunkani ku faafi karo waa muddo kooban. Wuxuu ku fidi karaa inuu qof qaba xanuunkani hawada u raaciyo qof kale sida hindhisashada ama qufaca, iyadoo si lama filaan ah loo taabto candhuuf mise dhacaan ka yimid qof qaba jadeecada. Fayraska jadeecada keena wuxuu awood buuxda u leeyahay inuu ku noolaado saacado badan oo ka baxsan habdhiska neefsashada, sida qof gacantiisa ku hindhisooday. Jadeecada carruurta aadka u yar way u dhiman karaan. Ururka Caafimaadka Adduunka wuxuu ka diiwaangeliyay inay sanad walba u dhintaan carruur gaaraya 114,900 adduunka oo idil. Calaamadaha jadeecada lagu aqoonsado waxaa ka mid ah qufac, qandho, indho casaan, waxa gaduutay indhaha, inay carruurta dhibsadaan iftiinka, murqa xanuun, sanbiyood, mise sanka inuu ka soo daato waxyaabaha sida biyaha oo kale, una xanuun, afka dhexdiisa in lagu arko nabro yaryar midabkoodu yahay caddaan, afka qalaad lagu yiraahdo complex spot. Calaamadani waxay ka mid tahay calaamadaha ugu caansan ee lagu aqoonsado jadeecada. Firiiric mise finan. Haddii aad carruurtaada ugu shakido calaamadaha jadeecada, fadlan la xiriir dhakhtarkaaga mise dhakhtarka kuugu dhow si aad ugu hesho talooyinka iyo dawooyinka ku habboon. Jadeecada waxaa u nuglaan kara carruurta aan qaadan talaalka xanuunkani la isaga difaaco vaccination. Qaadasho la'aanta talaalka waxaa sababi kara iyadoon bulshada ku baraarugsaneyn faa'iidada uu leeyahay. Haddaan carruurta laga daweyn, jadeecada waxay ku keeni kartaa xaalado caafimaad degdeg ah sida infekshanka inuu u gudbo sanbabada, maskaxda iyo dhegta. Waxay kaloo carruurta ku keentaa arag beel.